dagaalku meesha uu ka socdaa waxa weeyaan meesha la yiraahdo godqaboobe oo 14 mayl ama 20 kilomitir xagga Garowe ka xigta magaalada la yiraahdo Tukaraq ayuu dagaalku ka socdaa sidaan xalay idin sheegay waxa dhacday in booyada shidaalka laga gubay ama iyo gaariga saadka ciidanka Puntland warkan waxaan idinku soo gudbin doonaa si dhaxa kol haduu dagaal bilaabmo waxyaabihii kale ee kaftanka ahaa meesha way ka bixi doonaan warku sidoo yahay iyo xaqiiqdan idin soo gudbin doonaa waxa hadda ka socda godqaboobe dagaalkii ugu cuslaaba ka socda waxba la isku lama harin xagga Puntland waxba la isku lama harin iyo xagga Somaliland labadaba dagaalkaasi dib dambaysa dagaalkaasi u sii jitay maayo caawa ilaa berri dambe waa lagu kala calaf qaadaya dagaalkaasi wuxuu noqonayaa mid lagu kala calaf qaado oo Tukaraq dambe way ku deyn doontaa iyo hadalkeeda iyo maxaan idhaahdaa sidoo saansaanta uu dagaalku leeyahay iyo sida weerarka loo soo qaaday ciidamada Puntland ee weerarka soo galay waxa lagu sheegayaa inay yihiin 3,000 oo askari oo qalabkoodu dhameystiran yahay sidoo kale ciidanka Somaliland meesha ku sugnaayeen iyagoo ciidanka ku xoojiyay ciidamada badda ciidamada xeebaha iyo ciidamada kale maxaa la ciidamada backup-ka oo ahaa Somaliland iyagoo ku kordhiyay labada dhinacba waxba la isku lama harin hubka culus BM-ka hubka shilkayaasha hubka uraalka wixii meesha way yaalaan sikaawiga labada dhinac waa laga soo ridaya iyadoo aan wax qiyaas loo eegin hubku inta badan waxa uu ku dhacayaa meel banaan ayay ku dhacaysaa qoryaha tiirada dheer leh meesha fog wax ka dila ayaa la isku adeegsanayaa ciidan soo fadhiyaa ma jiro ciidanku isagoo kala durugsan buu hubka isku soo ridayaa iyagoo isku jira 13 mayl 13 kilomitir ayay hubka culus isku adeegsanayaan marka ciidanku laba meelood isku hor fadhiyo oo 5 mayl isku jirta ma jirto waxay isku jiraan 15 miles bay isku jiraan 13 to 15 miles bay isku jiraan oo hubka culus ee tiirada dheer baa la isku soo ridayaa ilaa hadda khasaaraha dhabta lama hayo waayo cid soo gudbin kartaa ma jirto khasaaraha dhabta iyo cid dhimatay toona cid soo gudbin kartaa ma jirto laakiin waxa la soo sheegayaa in durtada isla markiiba markuu dagaalku soo bilaabmay in khasaara u dhinaca Puntland dhacay in qaybtii labaad ee dagaalka dhinaca kale ee koonfurta ama ay hub weerarkii ay ka soo qaadeen laba dhinac bay ka soo qaadeen dhinaca dooxada godqaboobe iyo dhinaca kale koonfureed qolada dhinaca koonfureed markiiba waa la jabiyay oo imaka dhinaca kale ay u jabeen laakiin halka imaka dagaalku oo ka socdaa xabadu isweydaaranaysa infantry-ga oo iyaguna inay imaka madaxa isla galaan laga yaabo hubka tiirada dheer baa la isku bilaabay marka waxa weeye waxay noqonaysaa saan idin sheegay aan xalayba idin sheegay ama Garowe ama Laascaanood dagaalku waxa soo afjarmo in intaas oo dhan la is hor fadhiyo xaq ma ahaba kol hadii madaxa la isla galay yaan la kala qabanay la isku daawado kol hadii madaxa la isla galay labada ciidan la isku daayo ninkii roon reerka u haro inaguna waynu daawanaynaa haddii qof ku dhinto dagaal meesha waxa loo tagay xabadu indhamale waxa meesha loo tagay in lagu dhinto qofku inuu guuleysto inuu guul dareysto iyo in naftiisu meesha ku baxdaba maamulka Puntland uu dhaarsan yahay waxa ay ballan ku qaadeen in kasta oo xalay dhexdooda uu dagaal ka dhacay oo iyagoo aan taa eegin haddana ay dagaalka waxa ka go'an in ay yimaadaan ay qabsadaan Tukaraq meeshii laga qabsaday intaynu sanadkan ku jirnay ayaa iyaga ka go'an laakiin siday noqonba rabaa Somaliland waxa ka go'an
inay garowe u jirsato 7 mayl 7 kilomitir inay Soomaaliland garowe u jirsato ayaa ka go'an oo xuduudaha soo xidho si ay u hesho wixii laga rabay ee xuduudaheegu dal inuu yahay kii xuduudiisa dhameystirto iyar kadib waxaan idin soo gudbin doonaa kilibyada live-ka ee laga soo duubay hubka tiirada dheer ee la isweydarsanayo BM-ka iyo kaaraha la isweydarsanayo ciidanka Puntland waxa ku jira laba kaaray wataan 3,000 oo ciidana waxay wataan 74 baabuurta yaryar ee la yiraahdo Cabdibilaha waxay wataan 12 beebe waa ciidamada Puntland waxay wataan qoriga la yiraahdo BM-ka oo la furfuray oo gawaali jiidayso BM-kii isa saarnaa la yiraahdo BM19 iyo BM18 ayay furfureen oo iyaguna dagaalka hubka ay ka soo ridayaan uma malaynayo inuu dagaalku sii raagi doono waayo awood la isku sii hor taagnaado markaan anigu fikirkayga qiyaaso awood la isku sii hor taagnaada meesha ma taalo oo meesha Ruush iyo Mareykan isbedilayaan qolun baa la jibinaya warkii aan soo gudbiyay dad badan baa waxay lahaayeen been baad sheegaysaa warku xalay toole cid soo sheeg waa la qariyay Puntland dhinaceega way qarisay warka maadaama iyaga dhexdooda ay dad iskaga dhinteen xalay toole markay iyagu dhexdooda istileen waxa kaloon isha ku hayaa ciidanka Puntland in ciidan ka soo goosato qof kasta oo ciidanka Puntland ka soo goosta Soomaaliland waxay u ballan qaadeen lacagtii awalba la siin jiray iyo maxaan idhahdaa dalkiisa inuu ku soo dhawaado iyo in wax loo qabto iyo in darajo la siiyo ay Soomaaliland u ballan qaaday awal kaba saasay ahayd halka ay maanta ay Puntland iyaduna abaalmarin aanay sheegin ay u ballan qaadeen maanta waa la ishayaa rag wuu ishayaa in badan baa social media iyo Facebook la iska aflagaaday in badan baa dad walaalo la isku diray in badan baa maanta degan dukaraq iyo dhulka banaanka ah la isku diray maanta rag waa ishayaa wa salaamada dhamaantii